halkan iyo hoyga uu ka degay magaalada Hargeysa murashaxa madaxweynaha xisbiga mucaaradka wadani waxa horaanta hore caawa laga wacay warbaahinta madaxa banaan si xoog looga siiyo kulan caawa ka dhacay qasriga madaxtooyada Soomaaliland oo u dhaxeeyay madaxweynaha Muuse Biix Cabdi xubno kamid ah golihiisa wasiirada sidoo kale hogaanka labada xisbi mucaarad Cabdilaahi Maxamed Daahi Curkusi oo ka tirsan saraakiisha sare xisbiga mucaaradka wadani ayaa warbaahinta waxa uu uga waramay wixii laga wada hadlay kulankaasi caawa todobadii madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ka dhacay kulan muhiimka waxa uu dhex maray madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi xubno kamid ah golihiisa wasiirada oo ugu horeeyay wasiirka arrimaha gudaha xisbiga kulmiye iyo hogaamiyayaasha مرشحة مدحوينها حسبك وطني مش مرشحة حسبك وعيد قدوميها حسبك وطني يسراكيل كلا وكترسن أحساب المعارضة حل بأنه قاربة شوي أو حبناها كلن كوحو دارنا سيدا وقتين مالمهن واحد شركة حساسية كدالتي خلافية سياسية يدورشوينكي يا رمال لمدا كواسو آخر كي دنبانا سامين كويلان غاري حسك سيديديو طبانكا مي او سامين تو كويلان يسانا يهين مي طبانبا marka loo eego arrimaha ilaa maanta laga hadlayay xisbiyada mucaaradka ayaa waxa ay magacaabeen gudiyo qaban qaabo oo ay gaar u qabanayaan dabaaldega xuska 18 May magaalooyinka gaar ahaan Hargeysa taasoo sharax iyo faahfaahin inay ka bixiyaan ay tahay xukuumaduna waxa ay diyaarsay sidii caadiga ahayd fagaarihii ay marayeen ciidamada iyo hay'adaha kale iyo ururada bulshadu marka labada ajende laga wada hadlay ajendaha weyn oo ahaa ka khilaafyada siyaasiga dalka ka taagan waxa loo ballamay xuska 18 May marka uu dhamaado maalmaha ku xigaba in wada hadallo rasmi ah oo lagu soo afjarayo khilaafyada siyaasiga ay si rasmi ah u bilaabmi doonaan arrinta 18 May waxa lagu dhameeyay inuu xaqaasi cid waliba u leedahay inay xuska ku qaban karto goob kasta gurigooda xafladaha iyo meel kasta oo muhiimadaas tahay shacbiga Soomaaliland muhiimadu ay tahay inaynu dhammaanteen u dabaaldegayno oo aynu xusayno maalinta 18 May oo inagu weyn sidaa awgeed haddii ay amar soo baxeen يا هدي أمرنا قار كتشوابي أي مادين با وحاي جبدي النقطة عاونا إنه هالشيء كنا هيا إنه كوك على ساحنا إن أي حسبية دا معارض كونا جوابها أي كتلا جلين جواب الله يضل كبا هرجيسبا ما لني ماذا إن حفلة دا دبالدقة حسكا سيديو طبعا كمي تي ويني دا ما لني ماذا هيدا سيديو سعته tii habeenimada ahayd ee ay ku tala galeen axsaabta mucaaradkuna inay sidoodii ay u qorsheeyeen iyagana ugu socoto oo ay halkoodiyo goobahooda ku qabsadaan heshiisku ilaa imika waa intaasi ilaahayna waynu ugu xamdinaqaynaa dalkeenana dhaqan bay u tahay in markasta oo ay khilaaf yimaado aynu arrimaheena ku dhammaysanno wada hadal shacbiga oo dhanna waxaan ugu yeedhaynaa marka hore waxaan ku hambalyeeynaa munaasabadda ciida 18 May marka labaadna waxaan ugu yeedhaynaa inaynu xuska iyo dabaaldegyada ka wada qayb qaadano axsaabta mucaaradkana si gaar ah waxaan ugu yeedhaynaa goobaha ay u cayimaan habeenimadaasi xuskeeda inagoo maalinimada shacbiga Soomaaliland oo dhan meel ay kaga wada qayb galayaan habeennimadana meelaha gaarka ah ee madaxda gobolada iyo degmooyinku ay
gaar ahaan magaalada Hargeysa ay idinku cayimeen gudideeda qabanqaabadu inaad soo camirtaan oo aad ka qayb gashaan inagoo dhammaanteen u dabaaldegayna maalinta qiimaha weyn. Cali Qamaciir, Kalson TV, Hargeysa.